doonaynaa hal su'aal ka weydiiyo maalmihii u dambeeyay waxa lagu arkayay adiga oo biyo gaarsiin u sameynaya dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool kaamka barakacayaasha Naasa Hablood deeqda biyaha waa deeq adiga dhinacaaga ka timi waad la socotaayo siday diintuna ina farayso sadaqadu waxay tiri qarsoodiha lagu bixiyo oo gacantaada bidix yaani ogaanin haddii baashan ay tahay sadaqadan aad la baxday mid adiga ku gaara maxaad u qarsan weyday oo miidiyaha keenay sida kale dhaliisha inta badan dadku ku dhaliilaana waxa la yiraahdaa barxilbaan barqad jaamac batun dareenka shacabka ayaa inta badan ka ganacsada bal hadda dhaliilaha maxaad kaga jawaabaysaa wallahi walaalood ma santahay doorta xaalad kala dalku kuba jiraayo waxa imika ay keeneen u hadlayaa wada maqashada dadkayga ujeedkan kamarada u kaxaynayna waxa ahayd inay dadku ogaadaan duruuftay dadkoodu ku nool yihiin waxa laga yaabaa Hargeysa daaraheeda qurux badan inaad adigu daawato laakiin dadkeeda xaaladda hoose ku jiraan inaanad ogeyn oo kuba baraarugu karayso xaaladaha aynu soo aragnay marka dad fara badan baa ku daba dayday oo nala soo xidhiidhay oo habla musuusaacahoodii iyo waxay wax ku baranayeen inta iska gooyeen kuuliyadda dalada shareecada haweenka kuuliyadda jaamacadda Amuud Gulis ayaa dhaqaale iska ururiyay hablahaas Facekii labaad iyaguna qayb ka noqday dad kale oo muxsiniina iyaguna qayb ka noqday waxay u tahay ujeedku in watacaawunu cala albirri wattaqwa in dadka xaaladdan marka loo soo gudbiyo dadku ay ku daba daydaan inama nudcimukum liwajhi la nuriidu minkum jazaan wala shakura ilaahum baan ugu dhawaanaynay talaabadaynu qaadnayna waxay keentay inaan imika heer marayna dhakhtaradii la hadalno orano ummadii dib ha loogu noqdo marka wax riyaa iyo ismaqashiina ma ahayn oo TV-ga baan ka dhex sheegayay dad fara badan oo ku daba daydaan ummad kalena way wadaa si kalena de mas'uuliyad baa ummadda naga saaran dadkan waa dadkii macadka noo taagna waa dadkii codkana siiyay waa dadkii rajada naga qabay waxaan anagu haynay hadaanu gaarsiino waxa tusaale u tahay dawladda iyo dadka kaleba inay dadkooda hoos u eegaan taa intaasaan kaga baxaya aad iyo aad baad u mahadsantahay